عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة iyo cooking with xabsa kusoo dhawaada. maanta waxaan sameynaynaa dooro lagu sameeyay foornada ama digaag markasta sidii aad u taqaano foornada lagu sameeyay si fudud loo sameeyay dhalinyaradii maaragtay iga soo codsatay digaaga iyo bariiska insha Allah ma rabin inaan bariis sameeyo iyo dooro midnaba waxyaabo kale rabin inaan isku mashquuliyo insha Allah aan sameeyo laakiin codsigiina darteed dooraan soo sameeyay ama digaagkii aan markaas u taqaano iyo fudud si maaragtay fudud loo sameeyay xawaajiyaal maaragtay kala duwan hore u taqaaneen laakiin se laga yaabo inaan u isticmaalin noocan ku jiro insha Allah fiirsada waa ka heli doontaan midda bariiskana waa ku jirta isku maraan soo gelinaya insha Allah fiirsada bariiska sida fudud loo sameynayo wiilasha iskaabulada markaas waa ka soo baxay waxa ay weydiisateen marka insha Allah si iska abgareeya nala soo xiriira wixii talo iyo tusaale ah noo soo sheega insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم حواجي بربور كان كوب اللعبة هوشة وحواجي بربور كسيارة شيدان إسا قاعدة يرتا كليا أو باهنتها يعني wax badan uma baahnid waa sanjabiil shiidan waa barbarooni guduudnaayo shiidan oo la soo qalajiyay waa paprika dhahan iyo filfil wax yar oo filfil cusbaa ku darsanaysaa kabsar caleen waa wax meeshaas ku jira iyo toon shiidan marka waaba intaasba inta u baahan tahay chickenkaaga si fiican aan usoo dhaqato qali adduunyo oo kusoo dhaqatay iyo biyo halkaas ku yaalo basal yar aan ku daadsaday si ay carafta iiga maaragtay iiga caawiso marka xabadan chickenka waa kala gooynaa insha Allah markaan kala gooyo xawaajiyaadkayga oo ii diyaar ah aan marsanayaa biidnillah marka dooradeydii aan laba ka dhiganayaa oo laba qaybood aan ka dhiganayaa marka aluminumka iska saara saxanka aad ku karinaysaan insha Allah subagii aan marsanayaa hadeertaan si fiican u wada marinaysaa qaleylka maaragtay si uu uga baabi'iyo meesha shafka ah waliba u badi marka subagaas yarka ah oo rootiga loogu talagalay ah si fiican u marmari adoo maaragtay duleelinayo skinka koreeto maqaarka kore adoo duleelinayo si fiican u mari because shafka maxaa yeelay qaleyl waayo markastaba marka qaleylkaas aan ka ilaalinaynaa insha Allah si fiican hadaa u wada marisid aad maaragtay uga heli doontaa waa garoortii iyo waxaan isku darsanaynaa xawaajiyaadkeeni garoortii iyo xawaajiyaadka si fiican isugu qaso waxa waay kabsar caleentii iyo toontii sidaan horeba idinku sheegay kabsar caleentii iyo toontii iyo xawaajiyaadkii kaleeto meesha waa kusoo qoray markaas waa aragtaan ayadoo qoraala hadduu kugu yaraado midka guduudan marka ku darso jeceshaa ugu darso marka isku qas mari gurigaaga waxaa ku samaysataa kaaga fiican intaad soo gadan lahayd xawaaji ma aragta artificial ah oo laga soo gado dukaamada hindida iyo meelahaas يعني كان سميسو waxa guriga ku yaalo aad taqaano waa aad uga heli doontaa basbaasna ma lahan hadii aad basbaas rabtana dabcan waa ku darsan kartaa laakiin wallahi beel waaye kan ma sha Allah marka insha Allah idinka warka la idinka sugayaa si fiican ugu masaaje oo si fiican u wada mari yogurkaas xataa waa jilcinaysaa maaragtay dhadhan fiicanna waa u yeelaysaa marka si fiican u mari foornada ku tuuraysaa ayaan ku dhahay waa dhamaatay maalinkaas wixii aad doontaa ku cuni kartaa wixii talo iyo tusaale ah nala soo socodsiiya insha Allah aluminumkaasna si fiican uu kuu anfacayaayo dhaqid badan kuma sugayso haddaa ku gelisid foornada sida ugu sahlan aan rabaa inaan idin tuso wax kasta anaa faraha iiga soo gubteen wakaas foornada ku tuuraysaa 350 ugee waa kasoo dhacda wakaas qurux soo maaha maasha Allah tabaaraka Allah waaw markaas waxaad doonta ku cun maalinkaas sideeda ku cun haddaa maaragtay aad iscaataysi howlaha isku jirto haddii kaleeto Soomaali sax tahana bariiskaas u baahan tahay maaragtay cajiladiisa kaleeto fiirso markaas marka saliidii yareedo ku hartay aan korka uga shishubay masha Allah bariis hadduu ku haayana hadda wakaasa fiidiyowga bariiska fiirso bariiskaas korka ka saar wakaasa Soomaali bariis iyo hilib iyo bariis iyo chicken hadday helaan bis waaye